booqashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha diinteena suuban ee islaamku ay noo jidaysay inaynu samayno haddaynu booqayno xidid iyo xigaal iyo asxaab intaba. laakiin shay kasta wuxuu leeyahay xadkiisa haddii la dhaafiyo waxaa laga yaabaa inay dheeftiisa ka badato. booqashadu waxay ka mid tahay min asbaab almaxaba, asbaabaha dadka inay isjeclaadaan keena bay ka mid tahay. laakiin haddii xadkeeda la dhaafiyo waxaa laga yaabaa inay halkii ay dheef ka keeni lahayd inay dhib keentaba. macnahaasaa markaa nin shaacira baa qaatay. intaanan gabayga sheegin waxaa jira xadiis lasoo wariyey oo sheegaya zur qibban tazid xubban, laakiin culimmadu say u badan yihiin xadiiskaas way daciifiyeen isagoo marfuuca lasoo naqliyey. laakiin culimmadu waxay tilmaameen inaanu xadiiskaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam inaanu ka sugnayn. hasaatee laakiin nin shaacira macnaha cabiray oo ibnulwardi la yidhaahdo wuxuu yidhi qib wazur qibban tazid xubban faman akthara tardaada aqsaahu lmalal. wuxuu leeyahay ibnulwardi wuxuu leeyahay booqo dadka oo dadka u tagtag waktina ka maqno, haddana booqo wakti ka maqno. haddaad sidaa samaysa buu leeyahay taziid xubban, waxaad siyaadsanaysaa xub iyo kalgacayl. laakiin haddii aad soo noqnoqodkaaga farabadisid ama qofka soo noqnoqodka badiya, faman akthara tardaada, qofka soo noqnoqodka badiya aqsaahu malal iyo dhib iyo darar buu keenaa, ama dadku dhib buu gaarsiiya, dadku inay karaahiyeystaan halkay dadku ay jeclaan lahaayeen. qofka hadduu soo noqnoqdo soo noqsho badiyo dadku way ka daalaan. markay ka daalaanna meesha waxaa imanaya qofkii laga daalay waa qof la karaahiyeysanayo weeyaan. culimmadu laba tusaale ka bixiyaan oo tusaale aad u cajiib ah. laba tusaale ka bixiya waxay yidhahdaan waxay la mid yihiin booqashada saaxiibku hadday fara badato, waxay la mid yihiin roobka. roobku waxaa la yidhi haddii uu farabato oo mahiigaan uu noqdo oo uu daa'imo uu kala qaadiba waayaba, darar iyo dhib uu keenaa. waana min raxmatillaahi, ilaahay subxaana watacaala roobka fadrad iyo wuxuu ka kala dhigay inuu xilliyo inasiisanna inuu do roobku. markaa roobkaas hadduu qaydkaas ama mahiigaankaas haddii uu kala qaadiba waayo waxaa laga yaabaa inuu dhib keeno. haddii uu maqnaado oo waqti dheer uu maqnaado uu di'iba waayana isna inuu dhib keeno. marka haddii labada jeerba haddii uu kala qaadi waayana dadku ilaahay waxay weydiistaan ilaahay subxaana watacaala ka qaado. haddii uu di'iba waayana ilaahay subxaana watacaala gacmahay kor u taagaan, dadku ilaahay bay baryaan inuu roob u shubo. sidaas lamid marka waxaa la mid ah booqashada saaxiibka, booqashada xididka, booqashada xigaalka, booqashada dadka aad booqanayso, qof muslim aad booqanayso. nin shaacira markaa macnaha gabayga roobka qaatay oo ku shabahaya booqashada saaxiibka wuxuu yidhi calayka biiqbaabi ziyaarati inaha idaa kathurat kaanat ila alhajri maslaka alam tara ana alqayta yus'amu daa'iman wayutlabu bilayaadi idaa kaana mumsika. yani wuxuu tilmaamaya intaan iminka tilmaamayno, wuxuu leeyahay waxaad laasintaa oo aad ku nagaataa inaad saaxiibka iyo booqashada saaxiibka iyo dadkaad booqanaysid inaad ka yar maqnaatid waqti. laakiin haddii aad farabadisid buu leeyahay kaanat ila alhajri maslaka, yani inaad dadku kaa hijroodaan oo dadku kaa dheeraadaan oo dadku ku karaahiyeystaan ayuu wadda u noqonaysa haddaad soo noqnoqoskaada badisid. wuxuu leeyahay miyaanad arag, markaa tusaale ka bixin, wuxuu leeyahay miyaanad arag roobka haddii uu kala qaadi waayo inuu dadka daaliyo oo dadku ay darar iyo dhib inuu keeno. haddii uu ka raaganayn dadku gacmaha ku dalbaan oo gacmaha ay kor u qaadaan. tusaalaha labada culimad ka bixiyaan waxa weeyaan waxay ku tilmaamaan dharkaaga haddii aad ka raagtid jacayl, yani inaad xidhataa jeclaataa, haddii uu kugu soo noqnoqdo maalin kasta gelin kasta aad xidhatidna waxaa laga yaabaa inaad nacdi oo karahaysto inaad dib u xidhan weydba. wuxuu yidhi markaa nin shaacira markaa macnahana qaatay oo markaa sadiiqa ku misaalaya iyo booqashada sadiiqa iyo agjoogga saaxiibka adag joogtid. wuxuu yidhi aqib ziyaarataka sadiiqi yajidka kathawbi istajadahu ina sadiiqa yumiluhu an laa yazaala yaraaka cindahu. wuxuu leeyahay siyaarada aad booqanayso iyo booqashada aad booqanayso qofka saaxiibka ah ka yaraag buu leeyahay. haddaad saa samaysid waxaad ka helaysaa sidii dharkaaga aad istajadahu, dharkaad yani kathawbi istajadahu, dharka aad dib u cusboonaysatay aad dib u xidhatay oo kalaa, saa dharkaaga aad ka yaraagtay dib u xidhatay oo kalaa
kalgacaylka iyo mawadada aad ka helayso kale baad ka helaysaa. Wuxuu leeyahay markaa haddii aad saaxiibkaaga dad agjoogaaga ku farabeysid ama agtaadaba agtiisaba uu kaa waayo, waxay siyaadinaysaa inuu kaa daalo. Hadduu kaa daalana waxa weeyaan inuu ku karahiyeysanayo. Waxaan markaa u soo qaadanay booqashadan iyo gabaygan waxaynu soo qaadanay barnaamijkeena Miida Murtada. Waxaynu uga soconaana waxa weeyaan waxay ka mid tahay qaacidooyinka qofku uu isticmaali karayo intuu adduunka joogo, siduu ummadana siduu aakhirana ajar iyo dheeraad iyo fadli u helo, adduunkana uu sacaado iyo reerayn ugu noolaado. Waxaa kaloo la mid ah booqashadaas waxaa la mid ah oo kale qofku dadka wacdiya muxaadarooyinka ama khudbadaha jimcaha oo kale. Haddii maalin kasta aad dadka rabtid inaad wacdisid oo dadka inaad wax u sheegtid oo adiguna soo hortaagan tahay, muddo ka bacdi waxaad dadku way kaa daalayaan. Walow xitaa waxaad sheegaysaa wax wanaagsan ha noqdo, waxaad sheegaysaa wax qiimo leh ha noqdo oo value leh ha noqdo, laakiin haddii aad soo noqnoqodkaagii farabadisid oo maalin kasta, gelin kasta, subax kasta aad hortaagan tahay, dadku way kaa daalayaan. Marka xikmaddu waxay ku jirtaa inaad waqtina maqnaatid, waqtina dadka wacdidid, waqtina wacdidid, waqtina aad ka maqnaatid, oo lagu tago oo lagu doono. Laakiin haddii aad dadka daalisid, dadku kaa daalayaan.